Ku soo dhawaada saadaalin la xiriirta filinka filo. Saadaalintu waxay ku salaysan tahay qaybta soo socota ee 125. Sida nooga muuqato qoraalkan horteena ka muuqdo ee kooxda noo soo dhigtay oo ah aan goordhow ka filan doono kooxda inay noo soo bandhigaan jabkii Naif iyo guushii Sabriin. Marka waxaan rabnaa bal inaan saadaalin ku samayno intayna kooxda noo soo dhigin xalqadan soo socoto dhowr xalqadood ku saabsan arrimahaas. Sida aan la soconno xalqadihii hore oo dhan waxay runtii ku salaysnaayeen oo kooxda meesha badanaa oo London degan ayay noo soo bandhigayay xalqadaha halkaas ayaa lagu jilayay. Laakiin qaybtani waa runtii qaybtii carasanka iyo waddanka hooyo lagu dhigayay runtii ah qaybta xaqiiqada aad u daboolaysa ama aad ugu dhow xaqiiqada ka jirta waddankii sida layskugu danaysanayo jacaylka ka dhexeeya faqriga iyo qofka faqriga ah iyo qofka hodanka ah ama qofka saboolka ama qofka hodanka ah sida Naif iyo Sabriin. Marka qaybtan runtii waa qayb aad u xiiso badan oo runtii jiritaankeedii waddankii gudihiisa lagu soo jilayo. Marka runtii kooxda aad baan ugu mahadcelinayaa xoogga iyo waktiga iyo ay geliyeen in ay isku xiraan halka ay ku nool yihiin oo ah UK iyo waddankii jiritaan lagu samaynayo inay isku keenaan runtii waa arrin u baahan juhdi iyo dadaal aad u fara badan u baahan arrin sahlan ma aha. Marka saadaalintan waxaan rabaa inaan bal aan dul istaagno aniga aragtidayda jabka Naif muxuu noqon doonaa Naifse maxaa ku dhici doono jabkaasi la sheegay maxay noqon doontaa waxa waaye Naif jab minata dhibaatooyin oo la soo gudbinaan doono. Waxaan rabaa bal dhibaatooyinkaasi qaar ka mid ah in aan bal dul istaago bal hal aan u istaago bal sidaa ula socda. Dhibaatada ugu horeyso ee Naif soo gaartay waxay ka soo gaartay dhinaca Najmo in habaryartiis ama in aayadiis ayay ka soo gaartay oo runtii Najmo la dagaalaysa Naif kuna guulaystay inay Naif ka fogeyso Sabriin. Najmo halqabsigeeda wuxuu ahay ninkii naagtii jecleed oo kilideeda u bixisay furay aniga muxuu ii taraa. Marka Najmo taasi waxay keentay in Naif wixii hanti uu haysto o dhan ay tiraahdo dahab soo gad ciddii wax u dir. Waxaana dhici karta aniga aragtidayda Najmo habarteed inay garab taagan tahay oo Naif iyo hooyadiis la rabo in hantidooda meel lagu soo xiro oo hanti dagaal lagu haayo. Taasi waa jabka koowaad ee Naif la soo gudboonaaday. Dhibaatada labaad ama jabka labaad ee Naif iyo hooyadii la soo gudboonaaday waxaa waaye dhinacii dhaqaalaha oo hooyadii ay la'dahay meel ay ka bixiso ijaarkii dukaanka oo taasna Naif sabab u ahaa. Sababtaasna waxay ahayd Najmo oo mar kastaba ku dadaalaysay inay ka curyamiso Naif iyo hooyadiis dhinaca dhaqaalaha. Runtii waa dhibaatada labaad oo hadda hooyadii waxay Naif u sheegaysaa in lacagtii lagu bixin lahaa kirada ama ijaarka dukaanka ayna haynin xitaa deynna ay soo waysay. Runtii taasi Naif naftigiisa ku abuurayso murug iyo dhibaato. Marka tani waxayna tusaysaa dhibaatadan labaad in ciddii hantida lahayd ee ladneyd in hantidoodii ay baaba'day. Arrintan ay u eg tahay ninba waa markiisee musmuk kula koray. Tan waxay ku tusaysaa oo runtii rabnaa filinka in uu
xigmadda ku dugan ay tahay haddii hanti aad leedahay oo ilaahay hanti ku siiyey hantidaada ha ugu faanin dadka fakriga ah ha u adeegsan hantidaada inaad ku dhibaatayso dadka fakriga ah waxaasoo hooyada naa'if markii hooyo ardadii u shaqaynaysay siday macnaha u dhibaysay siday ugu jeestaynaysay siday ugu faanaysay marka waxaa waa taasi waxay hoos imanaysaa ninba waa markiisa ee muslim kula koray marka waa dhibaatada labaad waa dhinaca hantida oo la soo gudbanaatay naa'if iyo hooyadiis dhibaatada saddexaad ama jabka saddexaad aniga aragtidayda waxay tahay naa'if oo la soo gudboonaatay in halkii kili uu ku shaqaynayay ay saabiriin u bixisay inay xanuunayso marka taasna waxa waaye waa nafsigii uu ka galay saabiriin ayaa soo baxay marka waa marka la leeyahay nafsi waa jiraaye garo waanad joogi doontaaye marka jabka uu soo gaaray saddexaad aniga aragtidayda waa kilidii saabiriin uu bixisay oo xanuun la soo istaagay taasoo saadaal ahaan daktarku uu dhihi karo kilidan waa bixis ma shaqaynayso halkaasna ay imaanaysaa hooyo ardadii halkii ay lahayd kilidan noola bixiyo aragtidayda in la dhihi doono daktarka uu dhihi doono naa'if kilidaasi ma shaqaynayso waa in la bixiyaa waa dhibaatada saddexaad aan filayo inay la soo darsayso oo haddaba sida nooga muuqato sawirka inuu kilida ku dhegan yahay marka waa saadaalintii saddexdaa marka arrin ay isku tagaan oo najmo ay soo tagto naa'if ay tiraa kuma rabo dhaqaalihiina iyo faankii iyo hantidiina meesha ay ka baxdo kilidina xanuun uu ku soo noqdo naa'if aragtidayda wuxuu hoos imaanayaa saabiriin oo ilaahay ugu deeqay runtii baratayna wiil cusub oo si fiican nin dalley ah oo dabata ah yaqaana danta dadka saboolka ah ayay baranaysaa marka taas naa'if waxaan filayaa inuu soo hoos fadhiisan doono saabiriin nafsiguu galayna uu xiran doono saabiriin oo gashay nolol cusub waxayna leedahay ka mayro wixii horo ciyaarkan cusub ee baratay waa wiilkii u soo hiiliyey markii ay qaybta ku dalxiisaysay ay soo weerareen wiilashii ciyaal suuqa ahaa ama gaangiska ahaa ama shuftada ahaa wiilkii dabatada ahaa ama gulumaystaha ahay ama malaay dabashada ahaa oo arkay u soo hiiliyey ayay isbarteen marka saabiriin runtii boqolkiiba boqol ayay ku qanacday waxayna leedahay digaariyuhu gurka weyn ahaa gacalkaaga maangafaa soo gaabagaabay galabta casirka kala gadoonka saabiriin way ku qanacday baankiina waxay ku bandhigtay adeerkeed cabdiqaadir adeerkeedna wuu ku raacay wayna u sheegtay wiilkan cusub ama igaarkan cusub ay baratay inuu yahay igaar sabool ah ay isfahmi karaan soo koray nolosha ay ku soo kortay marka waa saabiriin intaa waxaa ku xigto aabbaheed maxamed amiin maadaama hantidii aabbihiis uu helay walaalihiis uu helay waxaa u dhiman inuu qurxiyo guri villo ah lacag u soo diro gabartiisa saabiriin lacagta ay la wadaagto odageeda cusub halkaasi ay ka galaan nolol cusub oo wanaagsan marka waxaan rabaa inaan isweydiino maadaama saabiriin sabool ay ku soo kortay dadka saboolkaana ay ka naxariis badan yihiin dadka hantida leh ama ilma hantida ku soo indhaqaaday
waxaa ka naxariis badan ilmaha saboolnimada ku soo koray. Saabiriin hadduu naa'if soo hoos fadhiisto isagoo kelidii xanuuntay oo kelidii aynu u shaqaynayn ay siisay, hantidii baaba'day, najmo soo darbaysay. Saabiriin oo ah qof duruufaha iyo danta yaqaano, naa'if ma u sabri doontaa oo waa ka roonaa doontaa oo waa kaalmayn doontaa, mise siduu u laaday ayay u laadi doontaa? Bal qof walibow saadaashaada ka soo dhiibo. Kulan dambe oo xiiso leh.